Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa kulmay run iyo been. Beeni waxay runtii ku tiri, maanta waa maalin aad u qurux badan. Runtii iyada oo shakisan bay dhinacyada eegtay, korna eegtay, waxayna aragtay inay qorax macaani jirto, jawiguna aad u wacan yahay. Markaasay waxay go'aansatay inay been raacdo oo xoogaa la soo luga baxsato. Been baa mar kale soo rogaal celisay oo tiri, biyaha ceelka waa saafi diiran ee inakeen aan soo dabaalanee. Runtii biyihii ayay gacanta gelisay, mise waa run oo waa saafi, waanay diiran yihiin. Labadoodii intay dharka dhigteen bay ceelkii qubays u galeen. Sidii loo qubaysanayay bay beentii mar qura si degdega intay ceelkii uga baxday, dharkii ay runtii lahaydna xiratay, cagaha wax ka dayday oo carartay, laba luuqna ka laabatay. Runtii ceelkii ayay ka soo baxday iyada oo qaawan oo caraysan. Been bayna isku dayday inay ka daba cararto oo dharka ka soo dhigato ama ka soo ceshato. Dadkii markii ay arkeen runtii oo qaawan oo ordaysa, intay dhibsadeen bay ka sii jeesteen. Maskiintii run ahayd markii sida loo dhibsaday oo looga sii jeestay aragtay, intay isku xishootay bay ceelkii dib ugu laabatay, dib dambana uma aanay soo bixin xishood dartiis. Maalintaas laga bilaabo, beenta iyada adduunka wareegaysa, iyada oo dharkii runta xiran, dadkuna iyada ayay rumaystaan, isla markaana waxay diidaan runtii oo qaawan inay arkaan. Sheekada labaad. Beri baa waxaa jiray nin la oran jiray Gambool oo ku caanbaxay run sheegid. Ninkaas runlowga ahaa ayaa runtiisa dad badan kula coloobeen, waxayna damceen inay arkaan maalin uun isagoo been sheegaya. Muddo kadib ayaa dhowr qofood ku heshiiyeen inay ka shaqeeyaan sidii uu Gambool been u sheegi lahaa. Waxay ku heshiiyeen in dibi la soo xiro, isagoo laga dhigayo in hadda la qalayo. Waxay kaloo soo diyaariyeen mindidii lagu gowrici lahaa iyo dabkii hilibkiisa lagu karin lahaa. Dadkii koox ka mid ah ayaa u yeeray ninkii runlowga ahaa ee Gambool, waxayna ka codsadeen inuu u yeero koox kale oo meel kale joogta, kuwaasoo qorshahana wax ka og. Gambool wuxuu u tegay dadkii loo diray, wuxuuna gaarsiiyey fariintii la faray. Hase yeeshee markii uu u sheegay fariinta, waxay weydiiyeen, ma la hubaa in dibigii la gowracay? Gambool waxaa ku dhashay shaki, si caqliyeysan ayuuna ku yidhi, haddii aan dibigii dabkii hurin waa uu xirnaa, dabkiina waa uu shidnaa, mindidiina waa ay ag taallay. Markii uu hadalkaas yidhi, waxaa fashilmay shirqoolkii ay la rabeen labadii kooxood oo ahaa inuu Gambool been sheego. Sheekadan dambe waxaan ka fahmaynaa muhiimadda ay leedahay run sheegidda, oo diinteena suuban ayaaba ina fartay in runta lagu dadaalo, beentana laga dheeraado. Waxaan filayaa saaxiibayaal inaad sheekooyinka ka bogateen. Aragtiyihiina ku aadan sheekooyinkan inoogu reeba qaybta qoraalada, sidoo kalena saaxiibada kala gaarsiiya. Waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan, waxna ku qaataan, ee inoo sheer gareeya. Maalin wanaagsan.